wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo beeraha Somaliland ayaa maanta soo gaadhay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Socdaalkan wasiirada ayaa salka ku hayay laba arrimood oo kala ah sidii ay wax uga ogaan lahaayeen xaaladda dhabta ah ee deegaanka iyo qalab cusub oo ay wasaaradda beeruhu ka soo iibsatay dibadda isla markaana ay kala soo degtay dekedda magaalada Berbera. waxaana wasiiradan si diiran ugu soo dhaweeyay magaalada Berbera mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Saaxil oo kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen maareeyaha dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Xoorxoor, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi, maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan. wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Cabdicasiis Maxamed Samaale oo la hadlay saxaafadda ayaa ka sheekeeyay ujeedada uu u yimid gobolka Saaxil una mahadnaqay sidii diiraneed ee halkaasi loogu soo dhaweeyay. ruuxantii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ah madaxweynaha qaranka ayaa siyaasadda qaranka uu ku hogaaminayay ay ka mid tahay in ilaha dhaqaalaheena la kobciyo oo kor loo qaado sida wasaaradaha beeraha, xanaanada xoolaha, caafimaadka iyo guud ahaanba ila wasaaradaha kala duwan ee ummadda u shaqeeya. ruuxantii anagoo fulinaynaa siyaasadda guud ee madaxweynaha uu dalka ku hogaaminayo wasiir ahaan ayaanu anaguna wixii awoodaha saaray si aanu u fulino talooyinka iyo tusaalooyinka madaxweynaha ee ku beegan wax soo saarka iyo guud ahaan horumarka dalka. sidoo kale wasiirka wasaaradda beeraha Somaliland Dr. Farax Cilmi Geedoole ayaa si weyn ugu mahadnaqay mas'uuliyiintii halkaasi ku soo dhaweeyay isagoo ka waramay muhiimadda qalabkan uu u leeyahay dalagga beeraha, arintana ay ka mid tahay tallaabooyinka dhinaca horumarka ah ee ay xukuumad ahaan gacanta ku hayaan. wasiirka maaliyadda oo saaxiibkay Cabdicasiis Samaale aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo qiimaha weyn uu siiyay wasaaradda beeraha. waa wasiirkii ugu horeeyay Somaliland intay jirtay ee aragtidiisu ay moogtahay arkay in ay haddii la kordhiyo wasaaradda beeraha tayadeeda in waddanku uu iskaga filaan doono xagga cuntada. ugu dambeyntii maareeyaha dekedda Berbera injineer Cali Cumar Maxamed Xoorxoor, gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cid ayaa si weyn ugu mahadnaqay socdaalka ay labada wasiir ku yimaadeen gobolka Saaxil. Saciid Khadar Cabdilaahi iyo Khalid Xasan Nuur, telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.